bandaha la soo rogay waa ku xuntahay waa maartay waa arrin duruuf adag weeye dadkii gaajo u baabahaya sida daraadeed ma xamili karaan 14 saacadood ama 6 saacadood inay qatanaadaan sida ay sheegtay dawladda Soomaaliya waxa ay martigelin doontaa bandow kaasi oo saameyn ku yeelan doona dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho goobaha sida gaarka ah saameynta ugu yeelan doona bandowgan waxa kamid ah goobaha ganacsiga wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha turbadiiba bandowgaasi waxa cabasho ka muujinaya ganacsatada iyo gaadiidka loo yaqaano bajaajka oo ah kuwa ugu badan ee magaalada isticmaalkeeda ku badan ganacsatadu waxa ay sheegeen in khasaaro badan uu ka soo wajahayo bandowgan muddada 24 saac ka badan dawladda Soomaaliya ay ku soo rogtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo ah halka lagu qabanayo doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo lagu dooran doono maalinimada berita ah tendada Afisyooni qaar ka mid ah ganacsatada oo nala hadlay waxa ay sheegeen in dawladda looga baahnaa in ay xirto goobaha iyo aagga u dhow doorashada si looga badbaado qasaaraha iyo sidoo kale saameynta ka dhalan karta bandowgan lagu soo rogay magaalada Muqdisho haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada iyo darwalinta ka xeeya mootooyinka loo yaqaan bajaajka oo ka hadlaya saameynta ay ku yeelanayso ama uu ku yeelanayo bandowgan waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed jooga magaalada Muqdisho qaasatan aan ka hadlayaa isgoyska Banaadir bandowga dad badan boo saameynaya ee ka mid yihiin dadka levelka hoose ah oo maalin joog raadsada oo magaalada Muqdisho ka raadsada ama Soomaaliya oo idil waayo bandowga la sheegayo hadda waa 24 saac balas 12 saacadood waa bandow aad hadda u fog waayo dadkaasna waxay u baahan yihiin nolol iyo waxay u baahan yihiin waxyaabo badan dadkaasna cid u kafaala qaaday malahan ama dawlad u kafaala qaaday ama shacab wax siinaya marka aad bay u saameynaysaa bulshada Soomaaliyeed marka loo fiiriyo bandowga ganacsatada wuxuu nagu saameynaya waayo anaga waxaan ku tirsanahay bulsho waaye bulshadana waxa weeye way adeegataa magaalada Muqdisho ka adeegataa xaaladii hadda waxa lagu jiraa oo adeegashada bishii dhax bay maraysaa marka aad bay noo saameynaysaa ganacsiga naftirkiisa aad buu u saameynaya waayo ganacsiga hoos u dhacaya arrimaha dhaqaalaha wallahi bandowga uu saameynaya hadii ganacsato ay tahay ganacsataduna waxay ku xiran tahay waa shacabka marka hadii magaaladii socodkii iyo wixii oo dhan la joojiyo way saameynaysaa marka waxa fiican lahayd xogaa in xitaa la qafifiyo oo magaalada gaara maadaama doorashada xitaa dhacaysa aysan ahayn doorasho qof iyo coda oo 300 dad gaaraya ay codeynayaan marka in aagooda meel iyaga ma aragtay safety la geeyo oo shacabka ma aragtay sidoo kale loo bahalkayo baheed ummaduna way kala duwan tahay oo noloshu hadba waa heer hoose jirta oo qofka hal maalin hadii uu ay shaqadiisii baaqato ay noloshiisa baaqanayso oo cuntadii waayi kara oo biyi waayi kara marka saameyn weyn bay yeelanaysaa mar walbana magaalada wax walba u dhaca magaalada ama bando haata ama bahalka haata dulmiga wixii soo gaaray ama saameynta yeelanaya waa shacab wallahi saameyn badan ku yeelanaya sababtu waxay tahay laamiga baan ka shaqeynaa meel kale kama shaqeyno sidaas daraadeed markii laamiga la xiro kala wareeg iyo waxa dhacaya arrimo badan baa dhacaya oo carada dhan ciidana baa jooga marka shaqadeena saameyn aad ay ku yeelanaysaa ma awoodno inaan shaqeyno meeshaan rabno aan tagno xaafadaan rabno aan tagno ma fahamtid marka saas daraadeed anagana caqabad nagu yeelanaysaa marka koorsan rabno meeshaan rabno ma qaadi karno inaan wax ka codsanayna kaliya ay noo fududeeyaan oo mootooyinka aan la celin oo wadooyinka aan laga celin maadaama aysan ay magaaladu iska xogaa iska shiisan tahay wallahi khasaaro badan ma ka dhalan karaa yani khasaaraadna waxa lagu badbaadin karaa yani in xogaa la qafiifiyo oo mootaalada si gooni loo fiirsho oo dadka shacabka ay u shaqeynayaan marka haddii carrada laga xirana saameyn badan ugu yeelanaysa annaga naftirkeena waxay noqon inaan shaqeyno iska fadhiisano kira baan ka rabaa waa mooto $10 baa lagu wadaa 10 doolarna waxaan rabaa inaan soo shaqeynaan rabaa laga yeeli maayo wada xiran ma fahanti marka wada shitaa wada bandow ayaa jiro kaasoo loo soo rogay doorashada dhacaysa awgeeda ugu horreyn horta saameyn uu leeyahay bandowga ganacsi waa ku leeyahay shacabkana saameyn uu ku yeelan karaa hase yeeshee waxaa noogu muhiimsan wax walba doorashadii muddada dheer aan sugaynay dadkoo dhan waxaa waaye dad xoogsato waaye alyoomkay raadsadaan waxaa laga yaabaa nin maalintaas bandowg inuu saameeyo uu xoogsan waayo oo caruurtiisa dab uu ka damo marka waxaan leenahay waxaan u baaqaynaa xildhibaanada mid dalka samata bixiya hanoo dooraan insha Allah khasaar waa ka dhalanaa ninka maalinta haddii dukaankiisa uu furi waayo oo albaabka loo xiro uu subaxdii soo bixi waayo dee alyoom la'aana ku dhacaysa in walba wuxuu soo toosaa sifa oo alyoomkiisa u helo
usoo gudbo midda bandowga aada ugu faraxsanahay in magaalada bandow laga dhigo because masiirka dalka ayaa la jiheenayaa 24 saac marka bandow wax gooniya hadda soo siyaadinaysa lama arko wax walba ka muhiimsan in madaxweyne fiican loo doorto oo wadanka jiha fiican u dhaqaaqo ku yeelataa ganacsatada dadka danyarta ah iyo wadayaasha mootooyinka loo yaqaano bajaajka iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan